Arbuko Arbuko ayar tadkor bakara lagay waa gubati garkiisa saanday meesha badantibo bar marwalba waxa lagu yaqaanaa in ay soo bandhigto ama ay gudbiso afkaar wanaagsan si ay ugu faa'iideystaan bulshada inteeda kale ayarta iyo buko waa hadalhaynta ugu weyn degmada waa bari iyo guud ahaan baraha bulshada waxaan labadan dhalinyaro ay xiiso u yeeleen tartanka lagu maamuusay bisha Ramadaan ee ka socda degmada waa bari iyo guud ahaan magaalada Muqdisho Buko Arbuko ayar tadkor bakara lagay waa gubati garkiisa saanday meesha badantibo ayarta iyo buko ka hor madadinta dhalinyarada degmada waa bari waxay isfaankooda nolosha ka soo bilaabeen heerkooda yaraanta iyo ayarta horta ma dhawni isku dugsiyan aan jirnay marka hal meel aan dugsi ku wada dhiganeynay hal xaafadaan deganeyn ilaa hadan hal xaafadaan wada deganaa hal meel aan ku baashalnaa hal meel aan ka soo hal meel aan derisanahay ilaa hadan derisanahay marka hal meel aan wada joognaa ani asii dad had isbartay oo meeshaan la isku fahmamani aan nahay warta laba qof oo isku xaafad ah maasha Allah markii garoonka la joogo warta waa la isjafaa waa ayay awooti kulli waa la isku jafaa laakiin mar haddii garoonka laga baxo laba qof oo saaxiibo ah nahay maasha Allah dad isku xaafad ah nahay hal meel aan taajidku wada dukanaa hal meel aan ku baashalnaa laakiin mar haddii garoonka la imaado sheekada xamala walaaltinimo balooni ma gal mugtahay saas camal isku jafnaa qaar ka mid ah bahda sportiga degmada waa bari ayaa shaqada labadan dhalinyaro ku tilmaamay mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada tartanka Ramadaanka waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay walaalihii marna saaxiibadeeda buku iyo ayarta oo mar walba oo na farxad geliyo galab walba oo meesha noo imaada mar walba dhiiri geliyo shacbi badan kuleh degmada taageer fara badan meeshaan ku yeeshay boqolkiiba boqol aad iyo aad ugu madacilna ayarta iyo buku mar walba degmada waa bari ani oo Ramadaanka hore waxa u maaneen banooni laakiin had sanadkan waxa u maana labadood meel walba markay aadan xataa waxa isku day inaan raaco daraada u dambeysay wartana wada jirni meesha oo kala kicineen degmo badan degmada Boondheer waa aadni xamureeni wartana wada waa ka marka meel walba oo xataa marmar xataa waxa dhaco degmada inaan ka baxno banaanka laami shacabka dhan markay labadooda ka hadlaan inay imaadaan oo bajaaj laami dhan bajaajyaasha iyo wax dhan inay istaajiyaan oo labadood inay fiirsadaan inta sanadkan ayarta iyo buko waxay rajeynayaan Ramadaan kadib in halkooda ay ka sii wadaan hawshan muhiimka u ah isdhexgalka dhalinyarada waa qaraxaysanaa jawigeena oo degan yahay wax uqdad Allah ma jirto nin walba soo niyadiisa saafi oo tahay meesha ka taga meesha ka dhaqaaqa qof walbana isku qanacsan yahay wax walbana muhiimada waxay tahay in la isku qanacsanaado haddii labada qof ama asxaabta isku qanacsan yihiin muhiim way inta badan waxay aaminsan yihiin bishaan Ramadaan in warkeena uu og yahay dadaa waxay ku leeyihiin jidka markaa maraysa ayarta 9 maalin ku dhiman 9 maalin hadii dhamaato bis waay macnaha sheekadu waxay u tahay 9 maalin hadii dhamaato ma dhiman rabaa mise soonle ma magac yeeshtay inta kale magacayga ma soconaa miya runtii waxaan rajeynaynaa insha Allah hamiga aan leenahay waxa waaye inaan anaga khaasatan anaga inaan suubsano beejid anaga noo gaar ah maamulka sportiga degmada ayaa u mahad celiyay dhalinyaradan iyagoo sheegay in iminka badalada dhalinyaradan aad loogu xiiseeyo guud ahaan caasimadda Muqdisho iyo baraha internetka bar marwalba waxa lagu yaqaanaa in ay soo bandhigto ama ay gudbiso afkaar wanaagsan si ay ugu faa'iideystaan bulshada inteeda kale ama wacyigelin la noqoto ama si kasta noqoto dhalinyarta marka waxa ku amaana buko iyo ayarta waxay sameeyeen waxay soo jiiteen dhalinyarta bulshada degmooyinka oo dhan marka waxaan leeyahay hambaliyo waa bari waxa waay mar walba waxay u taagan tahay horumarka sportiga iyo midka dalkaba marka waxaan leenahay insha Allah intaan in ka badan laga filaa jilba jilkiisa oo la tartamaya insha Allah degmooyin kale waxaan rajaynayaa inay nagu daydaan waan soo dhaweynaa insha Allah dad badan ayaa rajaynaya in labadan dhalinyaro xifaatankooda lagu arko garoomada waaweyn ee kubadda cagta balse waa kan iyagoo ka jawaabaya wax kaga qorsheysan ciyaaraha waaweyn meeshana dhigtaan maanta aan naqanaynaa Soomaaliya haday hoos nigeeyaan hoosana haday kor nigeeyaan korana marka meel walba aan rajaynaynaa in la horyaalada inaan soo muuqano gobolada degmooyinka dhamaan inta bayna shidna waan jecelnaa anaga rajaynaynaa insha Allah maamul goboleedyada bilaabanayo iyo koobka horyaalada insha Allah inaan mitilno adi maamul goboleed ama koox ahaan ama degmo ahaan inta waa rajaynaynaa insha Allah baash in toos loo sii wado oo xamaasad loo sii yeelo si kastaba degmada waa bari ayaa caan ku ah nabadda isdhexgalka bulshada waxaana degmadan ka soo baxay ciyaartooy badan uu qayb ka yahay kabtankii ugu horeeyay ee Soomaaliya keena koobka bariga iyo bartamaha Afrika